madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii uu arkay warqadda uu soo saaray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ee ku saabsan shaqo ka joojinta taliyaha hay'adda nabad sugidda qaranka iyo magacaabista taliyaha ku meel gaarka markii uu arkay qodobada 87aad iyo 9aad ee dastuurka ku meel gaarka ah ee jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya oo qeexaya in madaxweynaha jamhuuriyaddu uu yahay ilaaliyaha iyo horumaryaha mabaadi'da aasaasiga ah ee dastuurka uuna yahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida markii uu arkay qodobada 97aad iyo 100aad ee dastuurka ku meel gaarka ah ee jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya kaasi oo hagaya awoodaha laanta fulinta iyo xilka wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ee ku aadan xilka qaadista taliyayaasha ciidamada qalabka sida taas oo ku eg tala soo jeedin iyo fulinta howlaha horumarinta siyaasadda dhaqaalaha iyo maamulka dalka madaxweynaha jamhuuriyaddu isagoo dareensan muhiimadda ay amniga dalka u leedahay hay'adda nabad sugidda iyo kaalinta ay kaga jirto ka hortagga khataraha argagixisadu ku hayaan Soomaaliya iyo saaxiibada caalamkaba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya oo ilaalinaya mas'uuliyadda ka saaran joojinta tallaabo kasta oo dhiirigelin u noqon karta kooxaha argagixisada wiiqaysa sumcadda iyo kaalinta shaqo ee laamaha amniga waxa uu soo saaray qodobadan 1 go-aanka ka soo baxay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble in uu yahay mid baalmarsan xeerarka oo aan waafaqsanayn dastuurka dalka 2 waxaa la farayaa taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka mudane Fahad Yaasiin Xaaji Daahir in uu sii ahaado hogaaminta hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka si waafaqsan dastuurka iyo wareegtadii madaxweynuhu uu ku magacaabay 3 hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waxaa la farayaa in ay horkeento golaha amniga qaranka warbixinta laga sugayay marka la mudeeyo kulanka ugu horeeya ee golaha amniga qaranka ugu dambeyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya waxa uu farayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo golaha xukuumadda inay si hufan u gudaan mas'uuliyadda ka saaran dhamaystirka howlaha doorashooyinka ayaa lagu soo koobay wareegtadan ka soo baxday xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Fahad Axmed Kaariye Hargeysa.